2026 waxaa la sheegay 5 taxane inay dhammaan doonaan weliba 5taas oo ah kuwa aad u xiiso badnaa. Horta midna ma qusayo oo ma taqaanin mana garanaysin, balse afarta kale aad baad ula socotaan mar walbana waa daawataan. Laga yaabee tiim walbana inay mid gooni daawadaan. Inta aanan u guda galin waxaad inuu dhiirigelisaan in muuqaalka laakiin u sartaan. Haddii aadan naga mid ahaynna subscribe dhahaato gambaleelkana u furto si mar walba muuqaalada aynu soo gelinayn ay ku soo gaaraan. Haddana waxaan u guda galaynaa muuqaalkeena. Taxanaheena koowaad waa Kiskan Mac oo mid aan daawan oo idin qusin. taxanaha sheekadiisa iyo ma u guda galino isaga waxa uu muuqataa in la jooji doono sababo la xiriira ratingkiisa. Si kastoo ay dadweynaha u taageeraan mar haddii uu ratingkiisa taxanaha liito, waxay u muuqataa in taxanahaasi uusan hore u sii soco karin. Inta badanna waa la joojiyaa. Halkaas ayaanu ugu gudbaynaa taxanahaas waxaana loo badinayaa in asiga la jooji doono. Marka kulli lama Soomaali karin mana taqaanin, marka kan meeshiisa ayaanu ku tagaynaa. Taxanaha labaad waa Saaxiib Sisler ama Walaalihii la Ciilay sida u taqaanaaba, waxaana tarjuma Kaafi TV, yani TV-ga Kaafi ayaa sameeya oo Soomaali gareeya. Taxanahan asigana waxa uu ahaa mid aad u xiiso badan, dadkana soo jiitay dareenkooda iyo sida ay u jilaayeen jilayaashana ayagana intooda badanba magaca ku helay taxanahan dartiis. Asigana waxaa la sheegayaa dhowr sababood awgeed in taxanahan asiga gabi ahaantiisaba loo jooji doono oo season dambe uusan lahaa doonin, lagu ekeyn doono seasonkan labaad oo hadda socda. Inkastoo ay tahay taxanaha sheekadiisa mid aad u wanaagsan, qaabka loo sameynayo iyo qaabka loo gudbiyo ayaa muhiim u ah sida ay u fahmaan daawadayaasha. Sababaha ugu weyn ayaa ah in ratingka taxanaha uu aad hoos u dhac u sameynayay maalmihii ugu dambeeyay. Hadda xitaa taxanaha waxaa la sheegaa in ay ku adag tahay xitaa in daawadayaasha daacad u ahay uu sii heesan karabo. Daawadayaashu waxay doorbidaan sheekooyin si dhaqso leh u socda, leh khilaaf cad. Marka midaas ayaa waxay noqotay caqabada ugu weyn ee hortaala taxanahan. Sababaha kala jira waxaa waa in dakhligii iyo xayeysiintii qarashka ku baxay iyo wax soo saarka, taas oo marka caqabad weyn ku noqotay taxanaha. Waxaa kaloo jira oo laga sheegay in taxanaha sheekadiisa aynan isbedelaynba, yacni aysan sameyn horumar ama wajiyo cusub aysan sheekada isku bedeleen oo sidii bilowgii leh hadda leh iskadoo jiitamayso. Marka dadka iska lahay taxanaha mase shirkadii waday waxay hadda doonaysaa inay iska joojiso inta taxanaha xooga oo xiiso leeyahay, inta aysan dadka si toos ah uga harin gabi ahaantiisaba. Kulli hadda midani waa qiyaas. Haddii ay dhacdo in taxanaha la joojiyo, waa kaasaa waan isla joognaa oo waa sii wadaagi doonaa. Adinkana waxaa inagula wadaagi kartiin fikirkiina dhanka hoose ee komitiga haddii aad ka mid tahay dadka taageera ama daawada taxanahan ee Walaalihii la Ciilay. Taxanaheena xiga oo isagana la doonayo in la joojiyo xilligan mase xil ciyaareedkan cusub 2026 waa Feelihaad ama Dhaxal Suge. taxanahani wuxuu diiradda saarayaa awood, dhaxal iyo dagaalada qoyska dhexdiisa ah. taxanahani wuxuu si saahid inta badan diiradda saarayaa qoysaska iyo sida ay isku dagaashan yihiin sida dhabta ah, markaan ayadoo loo sameeyay qaab casri ah oo tayo sare leh. Dagaalada awoodeed ee jeelalkii hore iyo siraha qoyska ayaa ah xuduudda sheekada musalsalka. Laakiin markii uu musalsalka qaybaha dambe gaaray ayaa waxaa dhacday in xiisihii uu aad u sii yaraado, maadaama ay khilaafaadka iyo dhacdooyinka mar walba ay soo laalaabanayaan weliba si isku mid ah. Midaas ayaa taxanahan isagana ku noqonaysa mid uusan ka soco karin waqti dheer, weliba ratingkiisana marmar kasii dambeyso hoos ayuu sii dhacayay. Taasna waxaa uga sii darneed in taxanayaal kale ay kusoo dulbixeen oo ayagana qoyska ka hadlaya. Marka waxay taa cariiri gelisay musalsalkan Dhaxal Sugaha, kaas oo hadda ku noqotay marka mid go'doon gelisa, hoosna u dhigta taageerayaasha taxanahan. Sidoo kale horumarinta jilayaasha aan qoto dheereen ama iyo sheekooyin cusub oo aan lagu arkaynin taxanaha iyo khilaafaadka adag aan saameyn weyn lahayn, kuwaas ayaa ka mid ah sababaha musalsalkani loo joojin karo. Taxanahan afaraad waa mid aadan filin in xilligan waa la joojinaa la dhihi karo oo aadan xitaa niyadaada aysan kusoo dhicin marnaba. Waa taxanaha Tashkilaad ama Abaabul ama Howlgalkii Sirdoonka saa u taqaanaba. taxanaha waxaas kale TRT1 kaasoo muddo 6 ciyaareed amase 6 season socday. Hadda waxaa la qorsheynayaa marka in laga dhigo seasonkii ugu dambeeyay midkani 6aad. Sababaha ugu weyn iyo waxyaabaha macquulka ka dhigi kara in la joojiyo ayaan kusoo qaadanaynaa. Haddii aad ka mid tahay taageerayaasha taxanahan, waaba ogahay dadka ugu badan inay ka noqon doonaan, waan aniga ka mid ahay. Waxaan rajeynayaa inaad like saari doonto muuqaalkan, asxaabtaadana aad gaarsii doonto. haddii uuna subscribe ku ayna subscribe dhaha doonto insha Allah. Marka aynu isla qaadal dhigno wixii fikirkeenana dhanka commentiga ayaad inugula wadaagi kartaan. taxanahan laba xilli kasta ama laba season kasta waxaa la wareegi jiray hogaamiye cusub ilaa ay waqti xaadirkan xiisaha dadweynaha waa u haystaa. Laakiin taxano kastoo dheeraada waxaa sii adkaata in sheekadiisa ay sii socoto, maxaa yeelay season kasta marka qaar waxaa isku soo laabanaya sheekadii oo dib lagugu soo celinayo, haddana dhacdooyinkii
oo haddana dib u soo noqonaya. Marka qaar xataa waxaad arkaysaa in taxanaha aad adiga ma aragti qiyaasi karto wixii ka dhacaya xalqadaas gudaheeda. Marka sababaha ugu weyn midaas waa la dhihi karaa. Sababo kalena waa ay jiraan maadaama ay TV-ga TRT1 ay doonayso mashruucyo kala badan inay bilowdo, midkaana dhowr sano ee soo waday. Waxaan filayaa inay marka kan kuwa kaloo ka xiisa badan ay inoo hayaan. Waxaana la sheegaya in wareysiyo la helay oo sheegaysa in Tolkata Ritash uu soo gabagabeyn doono taxanahan abaabul ama howlgalkii sirdoonka aftarkana la dhaho tashkiilaad. Marka kulli hore waxaa u soo maray 3 hogaamiye iyo 3 hogaamiso ayagana oo tirishooyinka ah. Kulli dumarka mid hadda waxay ku jirtaa taxanaha la dhaho jacayl qotar dheer. Marka kulli anina labadan oo baa ka aqaana oo Maratil Dream iyo Tolkata Ritash. Marka midka saddexaad haddii aad adiga weli xasuusato dhanka komitiga waa inagula wadaagi kartaa. Kulli aniga kaas hore uma maqlin, magaciisa mana garanayo. midka shanaad asagana waa mid kale aad u xiiso badan. Waxaan filayaa inaadan filinayn midkaas in xilligan waa la joojinaa la dhihi rabo. taxanahani riyadii Ashraf ama Ashraf Ruya kowdiiba markii uu bilowday wuxuu noqday mid aad u xiiso badan oo soo dhaweyn badan la kulmay. Isla waqti xaadirkana raytinkiisa iyo daawashadiisana aanan kala dhicin marnaba. Mar walba sida masalada kale ku dhacda markii raytinkiisa uu hoos u dhaco oo la joojiyo, sidaas oo kale maaha taxanahan. Maxaa yeelay asiga dhanba waxaa loo qorsheeyay in laga dhigo 2 xilli oo keliya ama 2 season. Sida muuqatana hadda seasonkii koowaad waa uu dhammaaday, hadda seasonkii labaad ayaana socda, kaas oo hadda ku dhow gabagabo. Mar haddii uu seasonka labaad dhamaadana waxay ka dhigan tahay in jadwalkiisa taxanaha u dhammaaday oo sheekadii wax inta loogu talagalay hadda waa ay soo dhammaatay. taasna waxay caddaynaysaa in taxanaha uu asiga gebi ahaanba kaba dhici doono shaashada. Marka taxanahan in la joojiyo maaha mid raytinkiisa ama daawadayaashiisa ay hoos u dhaceen, laakiin waa mid ay si wanaagsan u qorsheeyeen dadkii sameynayay taxanahan, ayagoo ka fikiraya dhaqaalaha soo galaya iyo kii ay ku sameynayaan. maxaa yeelay hogaamiyaha taxanaha dhaqaalaha uu qaadanayo Chagtayo Olusoyna waa mid magac weyn ku leh dhanka iyo Turkida, waana actor caan ah. Marka qarashka uu ku qaadanayo sameynta taxanahaasina waxa ay noqonaysaa mid aad u qatar, xitaa haddii taxanaha uu hoos u dhacayo asiga qarashkiisa unbuu qaadanayaa. Marka agaasimayaasha iyo kuwa iska leh taxanaha waa ay ka taxadireen in wax walba ay isku jaangooyaan, weliba si qaab maskaxaysan ayay ugu taagaleen inay ku jooji doonaan waqtigan. Inkastoo ay xalqadaha dheereeyaan sheekada ay isku celceliyaan, balse ugu dambeyn waxay ku joojin doonaan seasonka labaad. kulli hadday u sameeyaan season 3 waa arkaana kulli waa isla joognaa. wixii macluumaad cusub ah oo ka soo baxa taxanahan waa idinla wadaagi doonaa. dadka reer Ashraf Tag eena dhanka komitiga ayaan idinku sugaya, idinkoo ka dhiibanaya fikirkiina waxa aad ka qabtaan in season 3 loo sameeyo iyo in taxanaha asigoo waqti xaadirkan xamaasad leh meesha lagu joojiyo, weliba sanado badan kadib xitaa uu qofka soo xasuusan karo in Ashraf Tag uu ahay taxane aad u xiiso badan. dhalinyaro ka raali noqdo, waxaan doonayaa muuqaalka inaan meeshan kusoo gabagabeeyo, laakiin xog kala helay oo Ashraf Tag ku saabsan, marka sidaa awgeed dib ayaan ugu soo dejiyey muuqaalka. marka sideedii la kula sii qabta iyadana ayada dhan hal mar baan soo khulaasanaa, yacni ma idinku dheeraanaya falanqeynna ma galayo. waxaa dhacaysa in Tanjar oo ka baxa musalka Nisaan ay ogaata iyadana Ruya tahay. teeda kalena waxaa jira musal cusub oo Yaratli la dhahayo, haddana ay wadaan TV-da kala duwan, xataa Fambroch iyo Kafi iyo Asal ay sameynayaan dhulka hoostiisa iyo guriga hoostiisana ay kala dhahayeen. marka kaasna waa uu soo baxay, kaasna cariiri ayuu bangeliyey musalka Ruyadii Ashraf, taasoo hadda markaa soo dadejinayso in sida waraqsiyaha badan lasoo gabagabeeyo taxanaha. waxaana dareemayaan in baahi aana loo sii qabin xilligan in lasii wado sheeko dhammaatay. looma baahna markaa in ay hadda sii furfuraan ama ay sii jiidaan, maxaa yeelay sheekada inta ugu muhiimsaneed hadda waa la hayaa oo waa ay sameeyeen. marka kulli hadda waxa uu marayaa 32 soddonka inuu dhaafayo iyo in kale Allahu aclam, balse waxay u badan tahay inuusan taxanaha 30 dhaafi doonin. wixii fikirkeena ah waxay nagula wadaagi kartaan dhanka hoose ee commentiga. wixii xog isbuucyadan wareegaya ayaa waxaa idinkugu soo koobay hal muuqaal, taasoo aad arkaysaa in aan idin dadaalayo. haddii aad mid ka mid ah taxanayaasha idin soo sheegay aad ka marugsan tahay in la joojiyo, waxaad nagula wadaagi kartaa dhanka commentiga. ha isciil kaaminin wixii calooshaada ku jiro dhanka commentiga
inoogu furdaami channelka haddii subscribe ku ahayna subscribe saaro muuqaalkana laagti inoo saar oo inagu dhiirigeli waaba haddii aad doonaysay mid kamid ah taxanayaasha soo sheega xogtiisa inaad ogaato taageeradooda noo muuji intaan kaga kulmayno muuqaalkiisa xigana sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.